waa mahadsantahay cashacuud waraysigii oo beexii waa dhageystay marka arrimo badan oo xoogaa waxaa ku jira oo deelqaaf ah wadahadalkan muddo dheer ayuu soo socday waxaa bilaabay dowladda ingiriiska iyadaana garwadeen ka ahayd oo arrintan liidgareynaysay markaas iyadoo fududeynaysay wadahadalada iyo facilitieska oo markaas venugii lagu shiri lahaa iyo maxaa la dhaha isu keenitaanka labada dhinac wixii ka dambeeyey wadahadalkana si wanaagsan ayuu u socday ilaa iyo kulankii midkii hadda ugu dambeeyey maana midkii ka horeeyey madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil cumar geeley oo casumaada u sameeyey adaan raalliya khaalid aan usoo noqonna marka waraysiga uu maanta bixiyey biixi waxyaabaha uu soo hadal qaaday biixi waxaa ka mid ah in wadahadalada u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan aanay socon karin ilaa faragelin shisheeye ay dhacdo markaa kadib waxa laale wixii lagu heshiin lahaa markaa ay dhacaan laakiin indhaha caalamka hortood ay mar kale isku hor fadhiistaan sidee u aragta adiga hadalladaasi waxaan u malaynaa wadahadalkii ugu dambeeyey ama is-afgaradkii ugu dambeeyey madaxweyne xasan sheikh iyo mudane shilanyo waxay ahayd in arrimaha masiiriga la guda galo islamarkaana dowladda turkiga ay fududeey ka tahay laakiin arrimaha waxay ka dhexeeyaan soomaali gudaheeda dadka wada hadlaayo waa dad soomaaliyeed dadka wada hadlaayo wax ka dhexeeyaan waa dad soomaaliyeed ma ahan dalal laba dal oo kala duwan ma ahan soomaali jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dalkan waxaa la dhihi jiray jamhuuriyadda soomaaliya xilligii maxaa la dhahaa isu imaatinka ama xorriyadda kadib waxaa la saxiixay heshiis ah unitiga soomaaliya iyo wadajirkoodii iyo maxaa la dhahaa soomaaliya inay mid tahay markaas wixii ka dambeeyey ilaa 90kii in la wada joogay labada socod ogeed go-aanka ah inay gaar u istaagto maxaa la dhahaa maamulka somaliland iyada ayaa go-aankaas gaartay laakiin go-aan soomaaliyeed shacbi soomaaliyeed oo si guud a cod looga qaaday ama si guud a laisku afgartay ma ahan midda kale arrinta markii international arbitration la sameynayo waa laba dawladood oo kala duwan oo kala madax banaan oo shaqo aan isku lahayn sida Eritrea iyo Ethiopia oo kale arbitration waa loo baahnaan karaa laakiin dal arrimihiisa ama Soomaali gudaheeda arrimahooda ayaga ay xalisanayaan waxaana si dara ah in la yiraahdo international mediation ama arbitration caalami ah in loo yeero oo arrintan madax gasha waa tahay Soomaali dhinaca kale loo yeero meeshaas ma yaalaan waa tahay anagoo ilaalinayno sharciga ama charterka UN-ka anagoo ilaalinayno unitiga ummadda Soomaaliyeed Mr. Khalid dhinac kale marka la fiiriyo waxyaabaha Somaliland ku doodayso biixin oo ka dhawaaji waxaa ka mid ah in aysan jirin dad joogta ama xubno joogta ah oo lagala hadlo heshiiskan socdo maadaama xilli hore bilowday maalinba waji ayuu galayaa kulamo la isugu yimaadaa kulamo dhowr hore u dhacay waxyaabaha Somaliland ku doodayso waxaa ka mid in aysan jirin dad joogta ah oo arrimahan lagala hadlo oo dawladda Soomaaliyeed mar waliba ay xubno cusub soo dirayso oo laga yaabo in arrintii aanay min bilow ilaa iyo halkii ay maraysay lagu kala tagay aan la socon ma kula tahay in loo baahan yahay in dawladda Soomaaliyeed ay u xil saarto wadahadalladan ay la galayso Somaliland xubno joogta ah oo arrinta min bilow ilaa dhamaad la socda inta badan waxa isbedbedelka ku imaanay dhankooda ay ahayd sababtoo ah markii hore waxaa ku jiray Faysal Cali Waraawe labadii kulan hore ayaga saaray laba xubno kale ay ku soo bixiyeen kulankii ugu dambeeyay hadda dhowr xubnood cusub ayay ku soo dareen maxaa loo tilmaamaa oo ah dawladda federaalka Soomaaliya kaliya loo leeyahay xubnihii hore maahan anaa kamid ahaa xubnihii hore waxaa kamid ahaa mudane xayir oo hadda wasiir ku-xigeenka maaliyadda ah tiimkii ka horeeyeyna inteeni waa ku wada jirnay marka isbedel badan meesha kama muuqdo hawshii sideedii waaye hadda team leader waxaa ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee cusbaa iyo federaalka arrimaha maanta la gudagelayna waxay ahayd arrimo masiiri ah oo ah waxa dhabta ah waayo wixii procedure aan hore loo soo saxiixay loo soo wada maray qaabka wada hadalka uu u soconayo iyo nidaamkiisa iyo dariiqada la maraayo horay ayaa loogu soo heshiiyey marka waxayna ahayd January 2014 lagu soo heshiiyey Istanbul lagu soo heshiiyey biixina asuu ahaa qofka saxiixay Somaliland u saxiixay
waata adoo raalliya ugu dambeyntii marka hadda wadahadaladii hakad ayaa ku yimid kii ugu dambeeyey ka dhici lahaa magaalada Istanbul ma dhicin oo waa la isku afgaran waa in la soo hor fariisto dhinaca Somaliland waxay weli idinku eedeynayaan in dhinaca dawladda Soomaaliyeed aanay daacad ka ahayn kulankan iyo in wax lagu heshiiyo marka hadda mar haddii kulankiina uu hakaday eedeyntaasna la idiin soo jeedinayo maxaa ku muujin kartaan in wadahadallada idinkala dhexeeya Somaliland aad daacad ka tihiin in hore loo sii wadana siday ku dhici kartaa bay kula tahay waxaan aad ugu xumahay horta wadahadallada aad arkaysid iyo barnaamijkiisa wuxuu ka burburay ama ka istaagay dhanka Somaliland dawladda federaalka had iyo waxay diyaar u ahayd statementyada ay bixiyeen aad ku aragtay in wadahadalladaas ay diyaar u tahay ayna daneynayso isla markaana roolka dawladda federaalka Soomaaliya ay tahay roolka unityga Soomaaliya ama midnimada ummadda Soomaaliyeed markuu uu leeyahay dadka u dhashay maxaa la dhahaa waqooyiga kama soo qeybgeli karaan oo dadkaasi maxay ahaayeen ma hadda mamaalay kaliya la diidan yahay maxay tahay macnaheedu waxa hadlaayo waa institution waa in la xurmeeyaa